فرار مقدشو kusoo dhawaada caasimaddiinii magaaladii Muqdisho waa hooyadii gobolada waa gurigii midnimada At the Banaadir City Council. Wallahi, it's beautiful. Wallahi, it's really nice. Everyone here is nice. It's amazing. The media doesn't show this kind of stuff. maanta madaxtooyada joognaa Villa Somalia joognaa. We're going to go see the president right now. It's good to be back home. xaaladdu iska fiican tahay, jawigu macaan tahay. Farmaajo noo geeya. We're trying to understand and come to terms with how our country is and how us as people and different professions and how we're going to improve the country. And yeah, I'm really happy to see the president. We don't get these chances in Melbourne to see any sort of person in power. And yeah, well, the way they welcomed us into this country is quite amazing. So very happy. Yeah, first time in Somalia, first time in Africa as well. And yeah, well, it's a beautiful country by the people, but yeah, there's still a lot of things we have to fix up on, and a lot of things that we can do to make our country great again. dalkan dadku u sugay waa idinka hayal waxa la iimaanaysan fresh outlook iyo fresh thinking iyo maskax caafimaad qabta oo qabiil iyo cadaawad iyo dhibaato aan lahayn maxaa yeelay waxaad kala duwantihiin ma laha Soomaaliya dibadda jirtay iyo kuwa gudaha joogay inay isdhex galaan taasna idinka pioneer ka ah idinka hormuud ka ah waxaan oran karaa leadershipka madaxdeena wadata iyo idinka aqbalaadiina iyo soo rumaysantiin dhulkiina yaa keentay in wax badan la kaga daydo insha Allah marka you have to applaud yourself. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waalidkii caruurtooda nagu soo aaminay ee u soo diray caasimadooda ummadda Soomaaliyeed. waxaa farxad ah inaan garoonkii aan ciyaaraha ka bilaabay 35 sano ka hor inaan maanta dhex taaganahay 27 sano kadib adduunyadu waxyaabaha ay nagu qiyaasayso waxay dalkan iyo dadkiisaba in la waayo laakiin inaan noolnahay Soomaaliya ayna dhimanin Soomaaliya ay nooshahay ubadkeedii kala irdhoobay inay isku yimaadaan wada ciyaaraan ayaa aniga taariikhi ah
and I'm from UK, so I'm excited to be here for the first time in my country watching a football Australia versus Waberi. I'm for Australians, of course, because they're like my neighbours. أنا وفرحسنا وجد سدح اللوا عن قرعني كحدة وبري أو هريالك الدجموين كيسوي وعاد هذا حلي أفرع برايدين درها إيش يا جماعة هذا هل قول أصوات دوينه دوحان كل صوت دردارمي عيارتوي ذا دجمال وبري إنه صوت دويان أستراليا maanta markaan wada ciyaarna kadib dhalinyarada saaxiib baan noqonaynaa insha Allah taala degmada waa birina ku soo dhaweynaynaa amwaar hiya saaxiib way kanaani amwaar hiya awad magaalada askala saaxiib magacaygu Cabdikaafi Maxamuud Makaraan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir waxa ku faraxsanahay maanta ciyaarahan qiimaha iyo qaayaha badan inay ka dhacaan 25 sano kadib in dhalinyaro ka imaaday dalka dibadiisa ee la ciyaaraan dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Waaberi farxad ay noo tahay shucuurta ka muuqata shacabkana waa dareemi kartaan in aad iyo aad ugu faraxsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waana guul soo hoyatay dalka iyo dibadaba intaba Erbander هذا مسدين dhalinyarada yimaadaan oo dhalinyarada kale isku xilmaan magaaladana ay isdhaxgal weyn sameeyso wax weyn ay noo tahay waa isdhaxgalka bulshada iyo sidoo kale dhaqankii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed isku soo laabanayso oo wada hiigsanayso magaalada nabad ah magaalo isdhaxgashay midnimo wanaagsan ayaa Soomaaliya maanta ka dhex muuqata dhalinyaro dalka meel kasta aad ka joogtaan iyo dibadda meel kasta aad ka joogtaan idinkaas kale idinkaas samata bixin karo dhalinyaro Soomaaliya idinka idin sugaysa Muqdishona waxa aad ka qabateen way muuqataa waxaan rajaynaynaa Muqdisho inaad ka dhigtaan meel wanaagsan oo horumartay oo aad idinka hoggaan u noqotaan naftu way dhimataa hadii aan nabad weyno nalka wuu damayaa hadii aan nabad weyno nalka wuu damayaa hadii aan nabad weyno naftu way dhimataa hadii aan nabad weyno naftu way dhimataa hadii aan nabad weyno imaadaan Soomaaliya oo ku soo dhiiradaan ayadoo ogeyd dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday magaalada Muqdisho inay ku soo dhiiradaan ciyaartooydan dhalinyarada quruxda badan ee maanta ku dheelaan magaalada Muqdisho farxad weyn bay noo tahay hadana dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaan jecelnahay mar walba Soomaalida jirta adduun weynaha inay yimaadaan dalkooda ku soo laabtaan la ciyaaraan walaalahooda kale mar waliba ay arkaan dalkooda iskuna dhiirigeliyaan inay dalkooda yimaadaan ee wax waliba u qabsadaan ee waliba ilaaliyaan amnigiisa
khaasatan waxaan la hadlaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba adduunka ay ka joogaan in ay dhexda xirtaan waxa jaalidaha kale Soomaaliyeed ugu baaqaya in ay ayagana sidoo kale ku soo daydaan magaalada Muqdisho ma sida u jeedaan waxa meeshan laga bixi doonaa 10 habeenimo ilaa 11 habeenimo ayaa laga bixi doonaa magaalada Muqdisho waa nabad insha Allah reer Australia waa in salaamaya dhamaantiin ku soo dhawaada magaalada Muqdisho madaxiina aan soo baxay madaxiina aan u imid si isku barano ma sha Allah marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay dhammaan Soomaalida Australia joogto hambalyo ayaan idin leeyahay wiilashaana ku dayashay mudan yihiin ninkii babalooni lama mar xataa goy kara anoo imaad abo welcome Somali le dheelosa isdhaxgal bulsho way ma sha Allah wax lagu farxo way wiilasha 23 saac diyaar soo saarnaan ka warna ilaa inta imaada ma sha Allah adan 23 kala sugay mayno meeqo aad isku darbafo muwadan way wallahi wani khira muwadanatin ani kaliya muwadan isku maleela kaliya iga daran ma sha Allah waana mahadsantiin ani wadani ay muwadani ما شاء الله برال الخيا ها والله ما شاء الله العوض كنا بنانك امين والله عيار تاريخ لا مش كده عليه ها سمعت انت wax laga yaabo sameey wallahi waa maadsantahay xarun aan nooga sheekayso ciyaartii aad Melbourne Delayn iyo Banaadir Sport Club waxyaalihii ka qaldanaa naadigan aad sida qaaska u taageeraysa hadda horta waxa ka qaldanaa naadigan hadii garbaha weerarka loogu imaado waxa la rabay in garbaha loo ma garbiye kala aadin garbiye kala aadino dhaxal furmayso dhaxda leeyso si kubad dhaxda leey garaacay dhaxda qaldka askale ninka saayga dheelaya askale ma oo saayga dhaxda soo raacad oo ninka darbo loo taagay ninkaasna dilo taagi la foorka inuu raaco la rabay taasa la rabay in dheelaan farxad ay tahay inaan inta ku wada ciyaarno aan wada dheelno aan is aragno aan is barano oo wadankii hooyo ay noogu imaadaan ciyaartooydan waa ciyaartooy aad u fiican horta runtii intaan kubadda ciyaarayna waa arkay kooxo badan balse teamkan aad buu u diyaarsan yahay waa rag si fiican loogu soo wada shaqeeyay
runtii wax lagu farxo markii labaad garoonkan lagu qabto ciyaar habeenimo ah runtii waxay noo tahay sharaf weyn magaalada Muqdisho inaan caawa joogno ciyaarta ku ciyaareyno la kala sarayn iyo seexan